argagixisada waxaa halka looga dilay 127 al-shabaab oo cadawgii ah ayaa waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah wasalaamu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. waxaan rabaa warbixin kooban inaan ka bixiyo howlgalkii la magac baxay waa beri 2. howlgalkan waxaa keenay kadib markii arxanlaawayaashu ay gumaadeen dad shacab ah, ay gubeen gaadiidkii, carruur saqiir ah oo aan waxba galabsan ay laayeen. dowladda waxay go'aansatay in si degdega looga jawaabo. wasaaradda gaashaandhigga iyo xoogga dalka Soomaaliyeed ayaguna waxay la yimaadeen qorshihii. runtii qorshahaas wuxuu ahaa qorshe aad u naqshadaysan. waxaanu go'aansanay awoodda xoogga dalka Soomaaliyeed in aanu dul dhigno nimankan arxanlaawayaasha ah. ilaahay waa nagu guuleeyey. howlgalku wuxuu ka socday 2 meelood, Hiiraan iyo Galmudug. galmudug oo isugu jirta Qurceel weji ka baxay iyo weji Dhuusamareeb ka baxay iyo weji Baxdo ka baxay. Hiiraanna wuxuu ahaa 4 weji oo kala duwan oo runtii leh yoolal ay ku kulmayaan. maanta oo ay taariikhdu tahay 20 bisha waxaan caddaynaynaa inaan soo afjarnay argagixisadii ku dhuumaalaysanaysay Hiiraan. midii galgaduudna ay hawsheedii noo socoto. argagixisada waxaa halka looga dilay 127 al-shabaab oo cadawgii ah ayaa waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa iyo goobihii kala duwanaa ee ka dhacay Hiiraan. ayagana firxadkoodii waxaana loo sheegay inay sii yaacayaan ayagoo ku yaacaya si aan tala ku jirin oo tala la'aan ah, qof walba meeshii ka horreysay uu orday. waxaan rabaa halkaan inaan ka caddayno waddada laamiga ah ee beledweyne ilaa Buulo Barda inay furan tahay oo maanta cadow ku dhex jira uusan jirin. waxaan kaliya xaqiijinaynaa inaan ka saarno miinooyinkii ay dhagarqabayaasha ku aaseen. waxaan rabnaa halkaan shacabka Soomaaliyeed uga sheegno argagixisadu waqtigeedii waa soo dhammaaday. kama harayno, waa daba soconaynaa, meeshay galeen baan uga dabagelaynaa, dalka waa laga xoreynayaa. mar haddii dowladdii iyo xooggii dalka Soomaaliya, wasaaraddii gaashaandhigga iyo dadkii shacabka ahaa iyo weliba guddoomiyihii gobolka Hiiraan intaasoo isgarabsaday aan isku duubannahay, xaggee bay nooga baxsanayaan? waa ka awood badannahay. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalkan ka qayb galay, kuwii ta'kulaynaya intaba waa mahadsantihiin. intii naga shahiidayna Allah u naxariisto. waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo shacabka reer Hiiraan meel uu joogo dibadda iyo gudaba, dhiirigelinta ay nala daba taagan yihiin, xogta ay mar walba na siinayaan, sida ay garabkaya uga garab dagaalamayaan ama ay nooga horeeyaan. aad baan idinkaga mahadcelinayaa. yaan la fariisan, yaanan istaagin, yaan cadowgu aan ka adkaana yuusan nagu soo kicin, yuusan jaanis damba noo helin inuu nagu soo rogaal celiyo, yaan laga harin. gobollada kaleeto oo dalka Soomaaliyeed oo sida gobolka Shabeellada Dhexe iyo Baay iyo Bakool iyo gobolka Gedo iyo inta gobollada nawaaxiga la leh ee gobolka Hiiraanna waxaan leenahay ka kaca, diyaar baan idin nahay inaan idin garab istaagno. waa tijaabinay tabarta iyo awoodda al-shabaab. wallaahi haddaad ogaan lahaydeen oo dagaal la gashaan inaadan u fadhin gumaysi inaadan ogolaateen. ha ogolaanina gumaysiga shabaab. nin shakhsi ah oo wiil yar ah oo qaawan oo aan awood lahayn oo calan madow wata inuu inta ku dul yimaado wax walba oo asagu uu rabo uu kaa qaato adna aad u ogolaatid waa daciifnimo. waxaan halkaan uga mahadcelinayaa ciidamada saaxiibadayada ah ee ayaguna na garab siiyey oo na gacan siiyey oo dagaalkan ugula jiray. dagaalkan runtii wuxuu ahaa dagaal si aad loo qorsheeyey oo ciidamada saaxiibadayada ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada aan ugu yeernay xoreyntu intaba ayagoo isgarabsaday aan u samaysanay qorshe midaysan iyo target midaysan. ilaahayna waa nuu guuleeyey. ilaahay baan mar labaad iyo mar saddexaad u xamdinaynaa. waxaan rajaynaynaa guushayada inaan sii wadano
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed hawsha ku jira waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato adukuna noolaada guusha ha ka harinina